ma tahay qof la qabo oo barbaleen haysto laakiin ku fikiraya furiin videogan adigoo kugu socdaa intii la furay horta waaba la furayba furiinkan ceeb maahan waa qadar laakiin baa jirta inta hadda ku fikiraysa oo barbaleen haysta oo maxaa dhahay furiinka ku fikiraya soo marka videogan adigu idin quseeya badanaa dumarka Soomaalida waxay isku waaniyaan furiin laakiin furiinka ma ahan sax ilaa xaalad yani oo laga fursan waayo haday imaato ma ogiye yani wax kasto yani qaladaad oo dhaco in furiin lagu cararo ama ifur ay la soo boodo yani qofta la qabo ayada maxaa dhahay yani waxyaalo mala yani laga yaababa inay ka xanaaqdo haday xanaaqdo isla markii maxaa dhahay ifur ay dhahdo soo marka xal ma ahan in wax kasto mala yani oo furiin lagu cararo laakiin waxa laga fursan waayo soo maxaa la diintu waxay banaysay in yani lagu kala tago oo qof walba maxaa dhahay ilaahay wuxuu dhahay qof walba ana irsaaqa yani waxa uu rabo oo siinaya soo marka maxaa dhahay furiinka laakiin oo mala yaniga ayuu quseeyaa videogan soo dhawaada share gareeya meel dheerna gaarsiiya horta nin kasto oo nin ama Soomaali ha ahaado ama ajnabi ha ahaado soo nin dhameystiran ma jiro qof kasto bini'aadan meel ayuu leeyahay meel ayuu ku fiican yahay in kasto nimanka Soomaalida yani ay badan yihiin yani maxaa dhahay qaladaadkooda oo yahay yani too much laakiin hadana ku qabata iyo qadar alla waa la qaataa maadaama ayaga iyo annaga aan kala maarmeynin oo ilaahay isku keen qoray isku keen qadaray oo hadana guurkiina yani maxaa lagu dhex jiro oo hadana laga yaabo inay maxaa dhahay meeshaas ilmo joogaan soo maxaa dhahay wax kasta waxay u baahan yihiin sabar iyo dulqaad ninka ku qaba hadii uu 3 shay ku fiican yahay 3 shay uu ku fiican yahay ayaa ugu sabraysaa hadii 4 uu ku fiican yahay 4 hadii 5 uu ku fiican yahay 5 yani ninka wallahi maanta uu fiican yahay waxa laga yaabaa 5 shay ama 6 shay yani 10 kiiba inuu ku fiican yahay 10 kiiba 9 haduu ku fiican yahayna ma sha Allah tabarakallah waayaba ya salaam laakiin 10 kiiba 2 haduu ku fiican yahay maxaa lagu sameeynaa soo labadaas aad ugu sabraysaa inna Allaha ma'a as-saabiriin بري waxaa rajaynaysaa inuu isbedelo uu yani maxaa dhahay qaladaadkiisa oo dhan uu xaliyo waxyaalaha ka qaldan oo dhan inay saxmaan laakiin say ku saxmaayaan la isku haystaa badana Soomaalida waxa way maxaa dhahay yani waxyaalo badan ay fahansanina jiro waxaan waxa oo iska hagaagay horta ma jiro wax inta meel iska dhigo oo iska hagaagay ma jiro laakiin waa laga shaqeeyaa hadii laga shaqeeyo sida loo hagaajin lahaa يعني مستقبلك وهجاجيان سو مركم حل لهاي فرينك أو لجو أرتايو فائدة ملهن ماركستان إن أنا نعسب جورستو أو هل عنو كادلو أو حنقول دشان عنو كرجانة دشان فرت حل ماهن بدنا تلاذ الصومالي ده محل لهاي أكتر ضحى عيبكم ماهن وحيكتها بوح عادي عيبنا معها لكن وحاول وحيالها قرقود محلها فانت إلما كلا جاجان كورس كود يصير عوضة وحلقو قاتميتك كعد علي إنا أسجق لا أجوكتت oo ilmihiisa oo karsado oo wuxuu uu ku fiican yahayna aad ku haysatid waxa uu ku xun yahayna aad ugu sabartid maalin inba isku ka toosaysaa reer kasto dhisan aragtiina ma ahan 100% inay wax kasta u dhameystiran yihiin laakiin reerkaas sabar ayaa lagu wada joogaa ama ninka ha sabro ama naagta ha sabarto ama labada qofba ha isku sabraano soo sabarka waxa aan laga fursanaynin waaye waxaa idinku dhiirigelinayaa inaad iska sabartaan oo reerihiina aad u sabartaan waxyaalaha yani ninka aan maanta oo looga sabri karin horta waxaa waaye in nin naaga daba carcararayo halkaas shay yani waxaa waaye mustaxiil dumarkana way ka dhintaan taasna waxaa waa ibtalo waaye ilaaha kugu imtixaanayo waxaa laga rabaa inaad 2 rakac ilaahay 2 rakac inta tukatid ilaahayow adhahdid imtixaankan ilaahow rabbi raxmaano ya rabbi la tibtaliini ilaahow ninkan ha igu imtixaamin naagaha daba cararaye ilaahow rabbiyow haduu khayr ii yahayna ii aslax haduu shar ii yahayna bedel khayr qabo ii kan inaad dhahdid waa horta ilaahay wax kasta mar kasta ilaahay aad u noqotid wixii oo yani aad maxal dhahay aad ka fursan weysid aad ilaahay ku wareejisid inuu ku xaliyo wixii adiga xalin kartidna aad xalisid